dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin waxaan soo gaarsiinay baaqii ama communique ka soo baxay shirkii muddada dheer bisha iyo jarjarka ah ka socday magaalada Baydhabo oo aniguna aan laba joor oo markaan hadda aan joogaa ugu dambeysaan soo booqday waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaan gaar ahaan dadka magaalada Baydhabo degan oo muujiyay si xilkasnimo ah muujiyay dulqaad aad iyo aad u badan muujiyay maxaan ku iraahdaay in ay u heelinayaan wax walbana ay u hurayaan nabadda iyo deganaanshiyaha deegaanka iyo dawladnimada waxaan sidoo kale aan aad iyo aad ayadana aan ugu mahadcelinayaa dalladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyay ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo ayagana intii tanaasul la suubiyo intii ugu badnayd ayaguna dhinacooda ka sameeyay oo runtii muxuu ahaa dul qaatay aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo waxaan sidoo kale iyadana aan u mahadcelinayaa maamulka oo hogaaminayo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo xukuumaddiisa oo ayaguna muujiyeen isbeddello waaweyn oo u danaynayo dadkan in deegaankan laga sameeyo tanaasulaadna laga muujiyo waxaan rabaa sidoo kale si gaar ah inaan ugu mahadceliyo odayaasha dhaqanka maxaan ku iraahdaa beelaha ku abtirsada Koonfur Galbeed oo ayaguna aan ka daalin ka caajizin wixii dhacayna in la dhayo la booga dhayo la daaweeyo dadkii walaalaha ahay ee dhibaatadu ay kala gaartay wixii u baahan in la xalliyo la cawil celiyana soo dhaxgalay dadkii dajiyay intii dhaawac ahayd la daaweeyay intii maxaan ku iraahdaay wax tirsanaysana qof walba gacanta madaxa laga saaray raalli ah oo la yiri dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay ayaduna dhinaceeda ay ka ballan qaaday in wixii kaalin ah uga aadan arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha isu soo dhaweynta dadka iyo qalbi xaarista iyo arrimaha wixii lagu ballamay sida loogu ballamay inay u dhaqan galaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday waxaan rabaa dadka Koonfur Galbeed hadday yihiin maamul hadday yihiin mucaarad hadday yihiin maxaan ku iraahdaa odayaal dhaqan hadday yihiin shacab intaba runtii bisayl siyaasadeed iyo dulqaad iyo tanaasul aad iyo aad u ballaaran ayay muujiyeen dhibaato hadday dhacdo in la xalliyo dhibaatadii dhacday iyo in laga ballamo biri dhibaatadaas oo kale inaanay soo noqon waaye waxa tallaabooyinka in la qaado ah waana laga ballamay dowladda federaalka ah na waxay mas'uuliyadda qaadatay wixii lagu ballamay xaqiijintooda inay dul joogto oo ay hubiso qofkii wixii lagu ballamay ka leexanayana inay gacanta ka qabato oo ay dhahdo wixii lagu ballamay sidaan ma ahayn ee joog nabadan timida awgeed waxaan aaminsanahay wax badan oo horumar ah iyo muxuu ahay booga dhayad badan iyo qalbi xaarid badan iyo isu soo noqosho badan inay dhici doonto haddii alla yiraahdo in la ilaaliyo nabadda in la ilaaliyo kalsoonida in la ilaaliyo qalbiga dadka in la ilaaliyo waayo dardaaranka guud aan ku dardaarmayno aad iyo aad ayaa idindiladan u fiican tahay waxaa kaloo aan rabaa ayadana aad iyo aad ugu faraxsanahay rabaan inaan ka mahadceliyo dadka Koonfur Galbeed sida ay uga go'an tahay in khawaarijta lala dagaalamo sida ay uga go'an tahay in maxaan ku iraahdaa deegaanada dalka Soomaaliya oo dhan la xoreeyo si gaarana deegaankan waliba ay xoog iyo caqli wixii ay hayaan oo dhan ay isugu geeyaan si ay loo xoroobo arintaas arin ididiila leh bilowgii maxaan ku iraahdaa dib u xoreynta deegaanada ah waaye waa ku hambalyeynayna waa ku bogaadinaynaa ayaga iyo dowladda federaalka oo isla socdana oo iskaashanayana muxuu ahay deegaankan ilaahay idinkiis mardhow khawaarijta waa laga weyn doonaa haddii alla yiraahdo mar kale hambalyo guud ahaan dadka Koonfur Galbeed oo nooc walba leh iyo martaba kasta leh waan u hambalyeynaynaa waana bogaadinaynaa walaaltinimada ay muujiyaan aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh